دكتور saxaabiga aad isleedahay uu ku saameeyay in badan oo marka taariikhdiisa akhriso aad leedahay waa saxaabi mudan in gaar loo xuso waa saxaabiga صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد runtii saxaabada soo sheegay sheekheena saxaabiga aad ii saameeyey xaqiiqatan waa saxaabiga la yidhaahdo cabdillahi bn cabaas radi allahu canhu ibni cami rasuulillaah sala allahu alay wasalam sida dadka muslimiinta inta badan ay yihiin cabdillahi bn cabaas waa ibnu cami rasuulillaah nebiga in adeerkii turjumaan alqur'aan tafsiirka qur'aanka ninkii laga soo gaaray ee maarata noo soo wariyey inahaasay runtii igu ekayd ilaa muddo 5 sano ah taqriiban ayaan waxaan ihtimaamkayga u badanayay inaan akhriyo maraajicda la xiriirta tafsiirka iyo maaragtay madaarisu tafsiirka iyo marka kitaab baa gacantayda ku soo dhacay xaqiiqatan dadka cilmiga tafsiirka iyo madaaristiisa inay wax ka fahmaan rabo ugu naseexaynaya talabada cilmiga inay akhriyaan kitaabka waxa la yiraahdaa tafsiir at-taabiciin للدكتور محمد بن عبد الله الخضيري أساتذة جامعة الإمام محمد بن سعود بوكمل كتاب له مجلدة وآد قيم وحرنتي مركب من خلال ذلك هذا الكتاب كان أنت أنا أخريني أيا عبد الله بن عباس آد إسامي واجا وحي كدن بينا آد بان أسير هذه مسكح إذن آد بأوسي وين هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه laba dhinacba runtii uu iga saameeyey qisadiisa mid waa marka uu yahay ardayga طالب cilmiga markuu yahay oo uu kulansaday ilaahay fadligiis sifaadka طالب cilmiga laga rabo waa qisa runtii waxa ku jirto talabada cilmiga ay aad u haboonta inay akhriyaan qisada Abdullah ibn Abbas iyo cilmiga soo u dalbay ibn Sa'd fi الطبقات الكبرى wuxuu ku soo warinayaa qiso إن عبد الله بن عباس وكيري أحد الصحابة من الأنصار رجع يسكفع هاين عبد الله بن عباس نبي عليه الصلاة والسلام مركو جيريونية صلوات ربي والسلام عليه دوري تمجربوها حالي لا وحود الشيء قبل الهجرة ب3 سنوات مركا شن يتوصل مالها ونبوجري تقريبا مركو ويل يسكفع هاين بوحكيري حلي جاس ورينا مري عن علمي قدلبنا وصحابة الرسول كأنه جوا وين علماء إنتان أطقنا عن علمي كضلبنا ننكو حكيري وعجبا لك يا ابن عباس ابن عباس هو الله محل يا بلاده ما واحد لين سائني دتكم مالك أباهن دونان علمي جاجة أيضا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يكون جيران رج أصحاب أهل العلمية مركب وحاسكو وقتها سقلوا من بوير مالن الوبا هذا مدويه وقت بدن هسك جلين دقت لك أمونا سنين وحب بلعب عبد الله بن عباس إنه علمي طلبه إن وإستجي إلهي وحب موهبة أسي إنه علمي طلبه وحال ورنا يا إنه آيات والبا قرآن كم ده صد صحابي ويدين جري 30 من الصحابة ويدين جري وحال سورنا يا سيدو كلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه مركو علمي جدل بيه qaar gacanyareyaashiisa ka mid ah ayuu wuxuu dhigi jiray salaad sunnahan tukanaya quraankan ku jahraya iga dhageysta aayadda marka ayna tafsiirkeeda iyo sabab nuzuulkeeda iyo cilmigeeda hore ii soo marin waan ku celcelin doonaa ii qora ii calaamaday ana quraanka buu soo maraya marka way u qorayaan marka uu salaada ka baxo qaadanaya saxaabadii uu hal ugu tagaya soo weydiinaya رضي الله عنه علمي سوء دلبي وحو جاري ولي وحو دلبي تري علمي قرآنك علمي اللغة شعرك كتب تفسير كواد عرقتين وحكب وحده إن ويدين تري دتك شواظ من نار محيط معنى هذا نبو أتجا يا شاعرة سوحلي عربت الشواظ كوحاسي أتقانا هل تجده في اللغة العرب؟ نعم بيت بوسو دليلنا ومدرسة متكاملة أي نقضي حلقة دي سي وحين نقطة مدرسة متكاملة إلى مركز دنبه صحابة الرجل هو وين علماء الصحابة أو قرن
nin baa u imaanaya cabdillahi bni cumar bni khataab radiallahu canhu marka su-aal buu weydiinayaa qur'aanka ku saabsan markaasuu leeyay idhab ilaa hada sheikh ninkaa sheikhaa u tag waa cabdillahi bni cabbaas oo soo weydii wuxuu ku yidhaahdana iila soo noqo ii soo sheeg ninkii baa u tegey wuxuu soo weydiiyey su-aashii aayaddii buu oga soo jawaabay cabdillahi bni cumar buu u soo noqday markaasuu yidhi walle aad baan u kahsan jiray buu yidhi dhiiranaanta cabdillahi bni cabbaas wuxuu ahaa nin dhiiran oo tafsiirka saxaabada qaar way ka baqi jireen sida aad la socotaano way sida madrasada kuufa oo kale maaragtay cabdillahi bni mascuud iyo ardadiisii aad bay oga dhowrsan jireen tafsiirka qur-aanka sida ibraahim nakhaci laga soo wariyo inuu yidhi kaana asxaabuna yattaquuna maaragtay tafsiir alqur'aani wayahaabuunahu walidaalika tafsiirka naga soo gaaray madrasada kuufa wuu ka yaryahay tafsiirka naga soo gaaray maka bal tafsiirka naga soo mujmalkiisa madrasada maka uu badan yahay waa dhaweyd waxaa soo baxday mawsuuca ka sheekaynayso tafsiiru maka oo 8 mujallad ah waxay ku soo arooriyeen ilaa 20,000 oo athar oo laga soo wariyey madrasatu maka cabdillahi bni cabbaas iyo ardadiisa cabdillahi bni cumar baa odhanayo marka wuxuu yidhi waan kahsan jiray cabdillahi bni cabbaas dhiiranaantiisa tafsiirka laakiin waxaan ogaaday annahu uutiya alcilm cilmi uu ilaahay siiyo ninkan aayaddii ayada ahaydoo ninka uu dirayo ha ka soo fasir wey ilaa la yidhi majliska cabdillahi bni cumar waa majlis ka deeqsiyoon weligay ma arag buu leeyahay axadu saxaaba dadka shicirka raadinaya u imaanaya wuu u jawaabi dadka tafsiirka raadinaya u imaanaya wuu jawaabi markii la weydiiyey cabdillahi bni cabbaas seed cilmigan ku xasilisay wuxuu ku jawaabay bicaqlin bilisaanin sa'uulin wa qalbin caquul caqli wax weeleeyo iyo carab wax weydiiyo maanta dhan dadku su'aali jira طالب cilmi mujtahid oo xariis ah runtii qiso waxa halka ugu sugan cibro ardada talabada cilmiga inta ay maaragtay talab cilmiga ay wadaan inkastoo talab cilmiga uu dhamaaninba inuu qofku ku dadaalo inuu cilmi taxsiiliyo qof la martaba ah iyo qof ka hooseeyo iyo qof la siman iyo qof ka fog mid u dhow intaba uu raadiyo dhinaca kale oo iga saameeyay xaqiiqatan Abdullah ibn Abbas wuxuu ahaa ka muallim tarbawi ah oo cajiib ah uu ahaa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu oo rasaa'il in laga qoro runtii mudan lagana qorayba wuxuu ahaa Abdullah ibn Abbas shakhsiyadiisa sida mutarjimiintu ay soo warinayaan sunan al-Bayhaqi ku soo arortay dabaqat ibn Sa'd uu soo aroriyay wuxuu ahaa nin bashash ah Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wuxuu ahaa nin bashash ah wuxuu ahaa nin la kaftama ardadiisa qodobka marka la yaab kale wuxuu ahaa mid ku xambaaro ardadiisa inay wax bartaan waa mas'alo naadir ah inta badan waxa laga yaabaa sheekhu inuu soo fariisto oo cilmiga akhrinayo shubayo laakiin ardayda faman shaa falyakhudh qofkii faman shaa falyatruk laakiin inuu ku qasbo oo kii maqnaado oo u yeero oo u yiraahdo fariista waxa ikrima rahmatullahi alayhi wuxuu soo warinaya mawlaahu oo gacan yarihiisa ahaa wuxuu soo warinaya inuu lugta ka xirjay xarig buu lugta iga xirjiro cilmiga iga dhigisu jimaal haadi magaalada haadi sidoo kale wuxuu soo warinayaan maaragtay in intuu maalmaha qaar soo fariisto aad bi xiriir u lahayn markaad kutubta taraajimta akhriso waxa dareemaysaa macallin iyo ardadiisa sheekh iyo ardadiisa xiriir leh anaga waxaad arkaysaa culimadayada ayaga iyo ardaydooda xiriirka ay leeyihiin xoogaa inuuna fiicnayn casharku wuu akhrinayaa ardadiisu waa karaameynaya assalaamu calaykum buu leeyahay laakiin sida tan inuu rag soo saaro ah raggan aad aragteen maaragtay waaweyn mujaahid ibnu jabr ikrima cataa saciid ibnu jubayr daawuus raggaas ahlu maka oo tafsiirka noo soo wariyey wuxuu ku soo saaray shakhsiyad la yaab leh fariida intuu soo fariisto maalmaha qaar wuxuuna dhihi jiray bay leeyihiin nashaad baan maanta nafteeda ka dareemaya suuratul baqara iyo suuratu yuusuf waxa su'aal ka qabtaan horta i weydiiya ayuu nagu yiri buu leeyahay yawm min al-ayam waxa kamid ah waxyaabaha runtii iga saameeyay ka muallim inuu ku tababari jiray inay wax soo jeediyaan oo ay fatwoodaan buu ku tababari jiray ikrama wuxuu soo warinayaa mujaahid aan iraahdo inuu maalmaha kamid ah ku yiri saciid ibn jubayr u waran dadka oo u fatwo markaasuu yiri ma waxaan u fatwoodaa dadka adigoo meesha taagan libaax maxaa la dhihi jiray hal libaax arkayso ma godlato soo ma hayn adoo aniga aan ku arkayo miyaan maaragtay markaasuu wuxuu ku yiri alaysa hada min ni'am illahi alayk soo nicmada ilaahay inuu ku siiyo maaha anooba ku ag taagan haddaa gaftid ku saxayo
waxaa ka mid a waxyaabuhu ku tarbiyan jiray ardadiisa oo mucallinnimadiisa runtii aad ii saamaysay wuu ammaani jiray dadka hortoodana wuu ku ammaani jiray wuxuuna samayn jiray oo aad xaqiiqatan ii saamaysay arrinta la yidhahda tawriifka tawriif inaad cilmigaa dhaxalsiisid hadda reer galbeedka aad u yaqaano ninka caalim ah waxay daba dhigaan rag daba shaqeeyo oo tawriif uu sameeyo waxa kan uu maaragtay dhaxalsiiyo dadkaas annaga culimmada iyada waxaa laga yaabaa inay tawriifka ku dadaalin tawriif buu ku dadaali jiray inuu fatwooda yidhaahdo oo asagoo arkayo iyo sidoo kale inuu ammaano oo yidhaahdo waxaa ka mid ahaa ahlu kuufa markay u imaadaan oo su'aalaha qur-aanka weydiiyaan buu dhihi jiray atas'aluunanii wafiikum ibnu dahmaa saciid ibnu jubayr buu ku wadaa ma saciid ibnu jubayr oo idinla jooga aniga su'aal ay weydiinaysaan reer maka markay ku soo xoomaanna wuxuu ku oran jiray ma su'aal baad i weydiinaysaan wafiikum cataa adinkoo heli karo cataa ibn abi rabax adinkoo heli karo miyaad maaragtay aniga su'aal i weydiinaysaan marka tawriif ayuu samaynayay qodobka aan raba inaan kusoo gabagabeeyo wuxuu ahaa macallin mutawaadic ah oo ardadiisa la kaftamo oo maaragtay ay wax weydiiyaan oo maaragtay ay la niqaashaan wuxuu soo warinayaa cikrima maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu akhriyay buu yidhi qawluhu tacaala min suurati alacraaf lima taciduuna qawman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida marka wuxuu yidhi waan ogahay aayadda waxay ii caddaysay cabdullahi ibn cabbaas baa hadalka wato in ilaahay uu halaagay qoladii dhaalimiinta ahayd falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can isuu kuwii xumaha ka radiyey waa la badbaadiyey wa akhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iis laakiin kuwan kale ee ka yidhi maxaad ka waaninaysaan kuwan ma hanuunayaan ka aamusay in la halaagay in kale anigu way iga wareersan tahay buu yidhi lima taciduuna qawman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiidan markaa intaa aan ku iri oo uu yidhi baa waxaan bilaabay buu yidhi inaan u sharxo oon la niqaasho saan u waday baan fahansiiyey buu yidhi inay badbaadeen kuwaas in la badbaadiyey tafaasiirta qaar qabto qowlka saddexaad in la badbaadiyey yaan fahansiiyey buu yidhi marka intuu ku farxay ayuu jaakad isiiyey buu yidhi ama jubbad hadiyad ahuu isiiyey tafsiiru tabari bay ku taalaa marka xaqiiqatan cabdillahi bin cabbaas shakhsiyaddiisa waxay aad iigu saamaysay ka taalibu cilm وكمعلم مركو أرض علمي جسده وجود ذلك كطالب علم أو معرفة متواضع أو أها عبد الله بن عباس وحو جيريودي واجع علمي طلبك وباللعبة كدب كنت سنة وصينولا مركا أنا يرى أنا هذا أنا قلفت هذا رنتي مرمر بدن واسكو أركا شخصيا وهذا علم هبل هذا ما طلبتها بقى لقيها بقى إن نفسها قوش كش رأس على هذا العلماء دي فقه ما طلبتها بقى الله هاي مركو على هذا الشيخ محمود شبلي الشيخ معرفة sheekh maxamed cabdimali rag oo fuqaha oo badan baa u jooga Soomaalida maanta maxaa laga baahanaya war cilmigaas iska daa waa buuxay cabdullahi ibn cabbaas markuu qalinka u qaadanayay 50 sano sii noolaa 68 buu geeriyooday ama ka dambe qaarkood yiraahdaan marka talabada cilmiga maalin waxa imaan doonta lagu baahan yahay ee talab cilmi ku dadaal midda labaad maartay waxaan aad ugu dardaarmayaa inay akhriyaan qisadaas ka muallimiin wa mashaayikh wa du'aat saan oo la tacaamulayna ardadayada iyo sida aan sameynayno maxaa la yiraahdaa tawriif inaan ku dadaalno inaan cilmiga dadka dhaxal siino barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran wa sallallahu ala sayyidina muhammad